درسينا كوبات وثمرات التوحيد توحيد كمريهيس مراها قفك مسلم كاي توحيد كادو آمنو كعمل فلو كقوصنا يا الدنيا آخرة توحيد كوا محي وكليين إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وحاو لقار كيهي لقو كلييو إساقا يعد كلا شراكان لقا قدقين إلهي لقو كليي ربي نمو معبود نمو مقعيدا هي صفات كي تلماما ولكسن إلهي وليه القرآن كي حديث كالنبي عليه الصلاة والسلام كحسن إلهي عبادة لقو كلييو وعبادة نوعي تايبا إنه قتميد إلهي وقارة انت هذا يريه انت هذا بضنبا إن إلهي قلبي قال لك كلييو توحيدك وأدون كعقيدة ونقضى قلبي يسا كتشرته إن إلهي عربك لك كلييو توحيد مويانا وحكا لا يقفك عرب كيس وانو كنا واقنا في كيس نانو كصابح إن إلهي سبحانه وتعالى حبناها وهي كلييان وعمل الله ذا عبادة أي سمينيان الله سبحانه وتعالى ماذا يسمينيان أي نقطه توحيدك هو أصل كي دينتي يا أساسك توحيدك هو لا إله إلا الله توحيدك هو وحا قفك ومسلم كن نقضه هدي لقوا هيانا قفك وقال نقنيه توحيدك وأصل كدينة الإسلام كوي كتاجنت هي عمل لا أنت أن لا أقبلهين توحيدك ووحي إلهي وسودة شيء كتبته وسودة شيء ووحى فافنتي سي شيغستي سي كدغال لنكيس إلهي الرسول شو صادري يا النبي يدي إلهي سبحانه وتعالى هو وحيودي فضل يدي سؤال بيو فربدين رادتك سنوا وناكسيهين natiijooyinkiisuna aad bay u qurux badan yihiin midho badan oo wanaagsanna tawxiidku waa leeyahay ilaahay baa wanaagyadiisa iyo midhihiisaba ku sheegay qur-aanka kariimka ah nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam in badan oo ka mida midhaha wanaagsane tawxiidka inoogu sheegay xadiisyada ka sugnaadee saxaabadu ay ka soo tabiyeen midhaha tawxiidka waxaa ka mida ana khayra addunya waalaakhira من فضائل التوحيد وثمراته أدونك وحل على وحو خير لكل ما الدنيا ذا انت وتشوغو يا آخرة إلهي خلائق ذا مركو يسوق كيرو وفضل يدا كذا شيء توحيدك يمرا توحيدك لقى قوست ما تشيرو خير يوناك أدون ولا كل ما أدون ما آخرة وأنا هين مرا التوحيد إذن التوحيد هو أصل كل خير خير ودن إسقى يا صلوة التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كروبات الدنيا والآخرة وسبب توين توحيدكم إلهي سبحانه وتعالى الدوماء وكقف يدو فرجنا وكقيله توحيدكم هو السبب توين إلهي سبحانه وتعالى الدوماء وكقف يدو فرجنا وقاقيالو لباتوينك الدنيا يكوى آخرة إلهي وقاكور من نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام دون أي راعي دادكو أي كوبدينيهين عليس بدنين أو ساريه دونتي مركي لقب بقين قرقونتو وحلو قري تورتي in dadka qaarkood badda lagu rido si culayska looga fududeeyo qorigiisu wuxuu ku soo baxay inuu ka mid noqday dadkii badda lagu tuurayay nibiri baa afka u kala qaaday oo ilaahay calooshiisa u geliyey mugdiyo saddexa ayuu hoosta ka maray calool nibiri buu ku jiraa baddana waa ku jiraa gabalkuna waa u dumay halkaasuu ka dhawaaqay nabiyullaahi yuunus wuxuu ku dhawaaqay tawxiid fanaadaa fi الظulumaat an laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min الظaalimiin mugdiyadaasuu ka dhawaaqay isagoo le mid xaq lagu caabudaa allahayga uma jiro adiga mooyaane ilaahay wuxuu ugu tawasulo uu ku baryay tawxiidka
khaladkiisii iyo gafkiisiina waa qirtay inuu qoomkii ilaahay u diray uu ka tegay iyadoo ilaahay aan u fasixin ilaahayna xumaan oo dhan inuu ka fogiy uu ka nasahan yahay ayuu qiray fastajabnaa lahu buuhi ilaahay subxana wa tacaala waanu ajiibno ducadii waa ka aqbalay wanajaynaahu min algam murugadii iyo warwarkii iyo dhibaatadii uu ku jirayna waa ka badbaadinay buuhi ilaahay dhibaatooyinka waaweyn ee aakhiro yaalla sidaas oo kale sababta u weyne lagaga badbaadaa waa tawxiid tawxiidka midhihiisa waxaa ka mida waxaa lagu helaa nabadgelyo dhamaystiran haddii qofku tawxiidka uu dhamaystiro wa acdamu sababin lilamni taami fi dunya waalaakhira waa sababta u weyn nabadgelyada dhamayska tiran lagu helo adduun iyo aakhiraba waa sababu lihtidaai alkaamil ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku hanuuniyo xaqa uu kugu hanuuniyo aakhira addoomaha marka la geeyana waddada jannada ilaahay inuu kugu hanuuniyo oo albaabkeeda ilaahay uu ku tuso tawxiidka ayaa sabab u ah aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi kuwa ilaahay rumeeyey ilaahay waxiday tawxiidkoodaana shirki aan ku dheehin tawxiidkoodu yahay tawxiid saafi ah oo khaalisa waxay leeyihiin amni nabadgelyo dhamaystiran iyaga ayaana kuwa hanuunsan ilaahay subxaana wa tacaala uu hanuuninayo qofku wuxuu ka helayaa hanuunka iyo badbaadada adduunye iyo aakhiro inta uu tawxiid ka haysto waxaanu gaadhayaa hanuunkiisa iyo nabadgelyadiisu heerka marba tawxiidkiisu uu gaadhsiisan yahay qofka tawxiidku u dhamaystirma labadaasi waa u dhamaystirmayaan ka tawxiidku uu ka dhiman yahayna labadaasi waa ka dhiman yihin ka tawxiidku uu ka maqan yahayna labadaasi waa ka maqan yihiin tawxiidku waa sababta weyn ee ilaahay subxaana wa tacaala addoomaha uu ugu dembi dhaafo khaladaadkana ilaahay uu kaga maydho xataa dembiye qofku uu ku dhintay oo aanu ka toobad keenin ayuu ilaahay subxaana wa tacaala sababta tawxiidka ugu dhaafaya waa ka allah subxaana wa tacaala xadiidu lqudsiga ku yihi ya bna aadam inaka low ataytanii biquraabi اlardi khataaya uma laqiitanii laa tushriku bi shayئa la ataytuka biquraabiha makfira rawahu tirmidi ina aadanow waa ilmo aadan oo dhan buu ilaahay la hadlaya haddaad iila timaado yowma alqiyaama dhulka muggi oo dembiya ana dembi aada u badan hase haatee aad timaado adigoo muwaxida oo shirki mid weyn iyo mid yar midnaba aan samayn oo ka maran dhulka muggi oo dembi dhaafa baan ku siinaya tawxiidku waa sababta ugu xooga badan ee ilaahay subxaana wa tacaala addoon ugu dembi dhaafo waa sababta ugu weyne jannada lagu galo bal la-aantii jannaba la geli maayo oo qof shirki ku dhintay janno geli maayo ilahay baa ka mamnuuco ka xaaraam yeelay se ilaahay subxaana wa tacaala uu ku yihi fi lqur'aani alkariim inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi اljannata wama'waahu الnaar wama lilظaalimiina min ansaar ka ilaahay u shariik yeelay cid shuraaka uga dhiga ilaahay jannada waa ka mamnuucay hoygiisuna waa naar cid u gargaaraysa iyo cid u shafeeco qaadaysaana ma jirto ma lilظaalimiina min xamiimi walaa shafiici yuطaac mushrikiintu ma laha yowma alqiyaama saaxiib u gargaara iyo mid u shafeeco qaado shafaacadiisa la aqbalayo toona tawxiidka ayaa shafaacada lagu helaa qof aan muwaxidayn xataa shafaaco heli maayo qof aan tawxiid ku dhimani janno geli maayo waa najaaso weyn oo haddii lagu dhinto aan maydhmin oo jannada aan lala geli karin wuxu uhi nabigeenu calayhi الsalaatu wasalaam sida jaabir uu ka wariyey man maata laa yushriku biاllahi shayئa dakhala اljana rawahu muslim qofka dhintay isagoon ilaahay cidnaba aan u shariik yeelahayn cidnaba aan la wadaajinahayn cidnaba aan la masaynahayn
cidnaba xaqiisa aan siinahayn ama aan wax ka siinahayn dakhala aljanna xaqiiqa ahaan jannada ayuu kaasi gelaya waa la hubaa inuu jannada gelaayo hadduu tawxiid dhamaystiran ku dhinto shirki isagoo ka marana ilaahay la horgeeyo tawxiidku hadduu qofka qalbigiisa ku dhamaystirmo qofkaasi naar bay is arki maayaan laa yadkhulu naara abadan tawxiid dhamaystiran addoonka hadduu la dhinto waa ka nabigu calayhi salaatu wasalaam yihi sida uu ka wariyay citmaan ibnu malik faina allaha xarama cala annaari man qaala laa ilaha ila allah yabtagii bidalika wajha allah ilaahay subxaana wa tacaala naarta waa ka mamnuucay oo naar is arki maayaan qofka laa ilaaha ila allah yidhi afkiisaa kaga dhawaaqay yabtagii bidalika wajha allah iyadoo laa ilaaha ila allah ka dhaba oo ilaahay daraaddii ka ah oo nifaaq aan ka ahayn ile munaafiqiintu afka waa ka lahaayeen hase haatee anfici mayso waayo ilaahay daraaddii baanay u odhan yaquuluuna biafwaahi maa laysa fii quluubihim waxay afka ka lahaayeen waxaan qalbigooda aan ku jirin haddii qofku tawxiid uu ku dhinto dembiye isagoo sameeyey uu dhinto oo dembiyadaas sababtooda naarta uu ku galo tawxiidku wuxuu diidayaa naarta inuu ku waaro oo naarta laba qoloba waa gelayaan mushrikiin iyo kufaar iyo munaafiqiini waa gelayaan kuwaas iyagu waa ku waarayaan oo saa u gelan weyo ka soo bixi maayaan dad ahlu tawxiid ahna dembiye ay sameeyeen bay ku gelayaan laakiin ciddii tawxiid iyo iimaan ku dhimatay naarta ay dembigooda ku galeen ku waari maayaana waa laga soo saaraya allah baa odhanaya akhrijuu min annaar man kana fii qalbi mithqaalu darati min iimaan ka soo saara naarta ka qalbigiisa inta u yar ee iimaani ay ku jirto tawxiidku haddii uu dhammaystirmo qofka qalbigiisa uu ku dhammaystirmo qofka ilaahay iimaanku jeclaysiiya ilaahay iimaanku qalbigiisa ku qurxiyaa wuxuu noqdaa qofka tawxiidku uu qalbigiisa ku dhammaystirmay qof neceb gaalnimada iyo fisqiga iyo cisyaanka dembiyada kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba wajacalahu llahu min araashidiin ilaahay waxa uu ka dhigaa mid ka mida kuwa toosan ee waddada saxda ilaahay subxana wa tacaala uu waafajiyey tawxiidka midhihiisa waxaa ka mida أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم والخوف منهم ورجائهم والعمل لأجلهم توحيدku qofka wuxuu ka xoreeyaa makhluuq isagoo kala inuu addoon u noqdo oo qalbigiisu isaga uu ku xidhmo oo isaga waxtar uu ka sugo waxyeelana isaga uu ka magan galo waayo wuxuu noqonayaa qofka muwaxidka qof qalbigiisu allah subxaana wa tacaala uu ku xidhan yahay wuxuu noqonayaa qof ilaah oo qura baryo ilaah oo qura rajaynaya qof ilaah oo qura ka baqaaya inta ka sokaysana uu arka makhluuqaad isagoo kale ah waxna aan yeeli karin waxna aan u tari karin wax ilaahay u qadaray mooyaane waa arrinkii uu baray uu sheegay nebi maxamed cabdullaahi ibnu cabbaas oo inan yara waclam ana annaasa low ijtamacuu calى an yanfacuuka bishay lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu allahu lak walow ijtamacuu calى an yaduruuka bishay lan yaduruuka ila bishayin qad katabahu allahu calayk waxaad ogaataad caqiide ka dhigataa khalqigoo dhami hadday isu yimaadaan si ay wax kuu taraan waxaanu ilaahay kuu qorin kuguma tari karaan hadday dhammaantood isu yimaadaan si ay wax kuu yeeleeyaan waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala kuu qadarin dhammaantood hadday isugu yimaadaan inay dhib kuu geystaan dhib aanu ilaahay kuu qadarin kuuma geysan karaan arrimuhu xagga ilaahay bay ka imanayaan walihaada tawxiidka midhihiisa waxaa ka mid ah oo taasi ayna xusuusinaysaa ashajaaca geesinima laga qaada qofka haddii uu shirki qalbigiisa galo fulaynimana waa u wehelisaa makhluuq isagoo kalaabuu ka baqanaya oo xaqii ilaahay uu lahaa uu siinaya makhluuq faqiiro isagoo kalaa ayaa waxay ahayd ilaahay inuu weydiisto uu weydiisanaya
ina aladiina tadcuuna min duuni illahi cibaadun amhaalukum kuwan alla sokaday aada baryaysaan ama aada caabudaysaan waa addooma idinkoo kale ah. maxaad makhluuq adigoo kale ah aada ka quudi doontaa? allah subxaana wa tacaala bari oo ku xidhan. qofku ilaa uu tawxiid qalbigiisa galo xoroobi maayo, wuxuu noqonayaa qof addoon u ah makhluuqad xataa isaga ka liita. waxaa arki kartaa dad kabahooda ka baqanayo kabtu hadday isrogto odhanayo balaayi soo wada. qaar xayawaanaadka qaarkood oo waxba aan u geysanahayn aragtida ay arkeen awgeed uga baqanayo, odhanaya balaayo horkacaya xayawaanka noocaasi, ama qof bani aadam oo isaga kaba taag daranba, ama waktiyada qaarkood waktigaa ilaahay u abuuray wixii ilaahay uu qadaray u dhexdiisa u dhacayo. xoroobi maayo qofku, gaadhina maayo cizada iyo sharafta xaqiiqiga ah xataa yatima tawxiidu fii qalbi, ilaa tawxiidku qalbigiisa uu ku dhamaystirmo. tawxiidku addoonka waxa uu ka khafiifiyaa xanuunada ay leeyihiin qadarada ilaahay ee uu xanuujiyaa iyo dhibaatooyinka addoonku adduunyada kula kulmaayo. walihaada dadka imtixaanka u daran ee u badan wuxuu ku dhacaa ambiyada, sa uu sheegay rasuulku ashaddu nnaasi balaa'an alambiyaa uma alamhalu falamhal. dadka dhibaatada u badan waxay ku dhacdaa nebiyada. dhibaato dadka waxay u kala badan tahay sida ay u kala wanaagsan yihiin ee u kala khayr badan yihiin. haddana dadka iimaanka iyo tawxiidku u dhamaystirmay dhibaatada dareemi maayaan, raaxo xagga qalbigaabay ayay ku nool yihiin tawxiidka sababtiisa. waayo waa addoon qadarka ilaahay rumaysan hadduu ku sabro in ilaahay subxaana wa tacaala abaalmarin wanaagsan uu la kulminaayo. waa addoon raalli ku ah waxa ilaahay u xukumo adduun iyo aakhiraba. iyadoo dhibaatooyin badan ay haystaan ayaa haddana qofka tawxiidku uu qalbigiisa ku dhamaystirmaa uu yahay qof laabtiisa aan cidhiidhi ka dareemahayn iyo diiqad, munsharixu sadriya, cibaadada u soo jeeda isagoo ku faraxsan oo qalbigiisa uu jeclaysanayo samaynaya. wuxuu noqonayaa qof qalbigiisa uu deganya iyadoo laga yaabo dhibaatooyinkii adduunyo inay ku kulmeen. tawxiidku wuxuu sabab u noqdaa dadka muwaxidiinta ah ee ilaahay keliyeeya in ilaahay subxana wa tacaala cadowgooda uga hiliyo, oo ilaahay guusha iyo gacanta sare iyaga u siiyo, oo ilaahay iyaga hogaaminta u dhiibo iyo xukunka. wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastaklifanahum fi lard kama اstakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilanahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shayca. ilaahay wuxuu ballan qaaday oo u ballan qaaday ahlu tawxiidka camalka wanaagsanna sameeya inuu ilaahay dhulka u dhiibi doono, oo diintooda ay u heli doonaan awood iyo xorriyad dhamaystiran, oo ilaahay subxana wa tacaala ay ku caabudaan, diintoodana ay ugu dhaqmaan. baqihii haystay ilaahay nabad inuu ugu bedeli doono. ilaahay subxaana wa tacaala inuu dhulka iyaga u dhiibi doono oo ummadaha kuwa hogaamiye ay noqon doonaan. ilaahay subxaana wa tacaala wuxu uhi yacbuduunani laa yushrikuuna walaa yushrikuuna bi shaya. cilada ama sababtu waa maxay? ilaaha quray caabudaan, shirkina ma sameeyaan. taasay waxaasoo wanaagiya ay ku heleen. muslimiintii hore iyagoo tiro yar, awood yar, dhaqaalo yar, dowladihii waaweynaa iyo cadowgii kufaarta ee adduunyada dusheeda joogay ka adkaaday ee cizada iyo sharafta ilaahay uu siiyey, cadowgoodana uga hiiliyey, hogaaminta ummadahana iyaga u dhiibay. sababtu waxay ahayd altawxiid walcamal الصaalix, inay ilaahay si dhaba u keliyeeyeen, camal wanaagsanna ay sameeyeen oo ilaahay subxana wa tacaala ay ugu dhawaadaan oo ilahay u ku jeclaado. tawxiidka ayaa sabab u noqda sacaadaة الdunya wاlaakhira, nolosha wanaagsan ee adduunya ta aakhiraba, badhaadhaha adduunya ka aakhiraba tawxiidkaa sabab u noqda. ina aladiina qaluu rabuna اllah uma اstaqaamuu tatanazlu calayhim اlmalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun naxnu awliyaaukum fi اlxayaati اdunya wa fi اlaakhira. ilaahay subxana wa tacaala wuxuu yihi kuwa ilaahay waxiday
qaaluu rabbuna allah waxadu llah kuwa ilaahay keliyeeyey kadibna tawxiidkaa ku toosnaaday ee camalka wanaagsan ee tawxiidka iyo iimaanku uu ka rabo la yimi marka ajashoodu ay dhammaato malaa'igtaa kusoo degaysa malaa'igtu way u bushaareynayaan malaa'igtu waxa ay leeyihiin ha baqanina waxa idinka dambeeya ha ka baqanina waxaad ka tegaysaan oo adduunyana ha ka murugoonina waad ka raysan doontaan wax ka fiican buu ilaahay subxana wa tacaala idinku bedelaya waxaad ku bushaaraysataan jannadii adduunyada markaad joogteen laydinku yaboohi jiray ee laydinku ballan qaadi jiray ee laydin odhan jiray haddaad ilaahay keliyeysaan camal wanaagsanna la timaadaan jannadaad geli doontaan annaga ayaa xigtadiina waa malaa'igtii ilaahay ee khayrka badnaa ayaa u sheegay inay xigtadooda yihiin iyo annaasiriina lahum kuwa u nusraynaya o u gargaaraya oo ilaalinaya biidn illahi subxana wa tacaala alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun tawxiidka qofku weli ilahay buu ku noqonaya bitawxiidi yakunu alcabdu waliya lilah qof aan ilaahay keliyeyn oo shirki sameeyaa weli ilaahay maaha waa weli shaydaan ilahay wuxuu ley laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun awliyada ilaahay muwaxidiinta baqa iyo murugo labadaba waa ka badbaadeen waayo awliyada ilaahay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa kuwa iimaan tawxiid alla ka cabsi iyo toosnaan kuwa laga helo weeye aakhirana si aynu sheegnay tawxiidku isagaa sabab u ah gelitaanka jannada qof aan tawxiid ku dhiman janno geli maayo marka badbaadada adduunye ta aakhiro badhaadhaha adduunye ka aakhiro nolosha wanaagsan ee adduunyo iyo nolosha wanaagsan ee aakhiro tawxiidkaa sabab u ah man camila صaalixا min dakri aw unha wahuwa muؤmin falanuxyiyanahu xayaaةa طayiba walanajziyanahum أjrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun qofka sameeya camal wanaagsan isagoo mu'mina labiyo dhadi kii uu yahayba ilaahay wuxuu ku dhaartay inuu ku noolaysiinayo nolol wanaagsan marka uu dhintana ilahay inuu ku abaalmarinayo wuxuu sameeyey waxa ugu wanaagsan oo abaalmarinta ugu wanaagsan uu la kulmaayo tawxiidku barashuu inooga baahan yahay ilaalin buu inooga baahan yahay laga ilaaliyo nawaaqida iyo waxyaabaha buriya tawxiidku wuxuu inooga baahan yahay ku camal fal tawxiidku wuxuu inooga baahan yahay dacwad iyo yeedhmo dadka in la baro oo loogu yeedho ilahay baynu subxana wa tacaala weydiisanaynaa an yuxyiyana cala الtawxiid wayumiitana cala الtawxiid wayabcaثana cala الtawxiid inuu tawxiid inagu nooleeyo tawxiidna inagu dilo tawxiidna inagu soo saaro wallahu aclam wsala اllahu calى nabiyina mxamed